سؤاليه يحفيزك لحريري نبتقليده ساكتر كنبتقليده لحريري قولها برلمان كشرفت الوسود شيديي هدي aan si kooban u soo dhigo waxa ugu horeeyay su'aalo inta badan way badnaayeen laakiin way area ku soo laabanayeen marka arinta la xiriidha khilaafaadka qabaa'ilada yaanu horeysiin si guud horta golaha baarlamaanka sharafta leh waxaan rabaa inaan u cadeeyo ama ay og yihiinba guud ahaan deegaanka kama jiro laba qabiil oo dagaal ka dhaxeeyo oo hadda isdhex maraynin oo colaad ay ka jirto ma uu jiro dadku way isla degan yihiin qabalayada wada degan yihiin xoolo dhaqatadu way isdhex guurtaa shaaha la wada cabaa waa la wada fadhiyaa marka la leeyahay marka colaad qabiil baa jirta laba qabiil oo Soomaaliyeed oo deegaankan maanta degan oo colaad ay ka dhaxayso isdhex maraynin ma ay jirto marka in la yar kala saaro dhacdooyinka dhacaya iyo colaad qabiil waan garanaynaa qaabka ay ahaan jirtay colaad socota oo la kala aano goosto oo aan safarku isdhex marin oo ma aragtay dee waxay ahayd dadku laba reer ay kala xiran yihiin ba colaad qabiil la yiraahdaa marka ma ay jirto laba qabiil oo maanta يعني عل أديان كصومالي ده علات كده حيث يسدح مرينا ما جرت تصالح يردن سوق هذا جوابها دوجود دنبيه دعوين كده عين ورني روكله تقول جوبنا وكل مركز سوق هذا لو حيابها كده دعوين موجه اللي بدو قيس وادو ودقنا ولا لا وي أنت كلام ودقينين سيدا كله برقد إيريا ده جنا كل دعوين كده دعوين والموجه ذاتك ولا له ودقنا ويودا دقيهن مقالوا يمكن شاهل ولا عباء ميجينا سيدهم بالسكون مرتجلاي ولا سكون حصادها مركز يعني دعوة كرت دقان كبلارن معمولة إنه ذاتك حول قطعة يكونوا ليهين جعان توضع وهب يقريه يكون شران دعوة ويدعوة ومركز قف ودي لا أما مارك تاي دعوة ويدعي كرتها لكن علاد جرته وسيجود إلا يرفهمه إنه سنجري مرة بينان عديو تامر كلجة سو جدبو dhacdooyinka dhaca marka qaabkee loo maareeyaa dhacdooyin way dhacayaan oo guud ahaan sababta nidaam dawli ah uu jiro baarlamaan uu jiro shuruuc soo saarayo ciidamo loo tababarayo loo hubaynayo loo hawlgelinayo yaani waa dhacdooyin dhacaya in laga hortago ama kuwa dhacay la maareeyo un way marka dhacdooyinka guud ee dhaca deegaankeena marka la barbar dhigo waa wax aad u kooban oo yar way 95 degme ee maamulayno وحد الدعوة الله سوق هذا نيو وصدق كمان بني أفر مركز سيدا صدرت إن سجود هرت اللو فهمه قاب كاللور دقة هي إنه سن يعني إبعاد ميل كجت ثمان تحرين يسنجرين بانو باهنا الدعوة مركا كهرتجة سيدا هي دقة كجود مركا ترى هذا دعوة ينبضن أو لقى هرتجة لباب ديل اللي حليه أو لو حليه هرجلين سحرين شرعية نظام شروع عادي لو حل ما ارتاح لقى هرتجو أما قاب كلا أو administration لقى هرتجو دائما باجرة الله قبته شقوينا هيدا هم نجا يمام الله قبل اسمه هذا كلا برشة أضياش وحجرات كلا يعني ديجان كان واحد والنبض اللي هي شقوين باللارن أو كهرتج الله هي باجرة هدايتها هاي مقالوين كواوين يهدي أي تيمية جبه مركز سياسة صدرت كهرتجة مركان نراهنه وحيابه ويدعي كران لكن مركب بحد دور كان معمولة إنه يقاب كودات كانوا يقول لبربر ديو كهرتجة وفي عيه دعوين كدعاء سيد الله ماريا دعوين كدعاء وحلا ماريا دعوة والبا قاب كمركا يوتال بالله ماريا تصالحان دولة الرول أي لا هي باجرة أو مركي أي دعوة مالك دعوة إن أمني الله سوى إن قاعد كوديجلي وحجيستي للراديو سشرع الله هركانه إن إيريا دات كنا هوب كايستي قرية هايستا لقى أوروريو أو دات يعني جوبتي أيسر نقولين جوب violence أما أنارك كردعو أو فوضى أو الإسلاجي نسنسين نقولين أو لحكمايو أو واحد دعوة دعي مويه نسن واحدة ما كذا بدعي مجرت الدجاج كدعوة أنت مالك دعوة واحدة بوك سيدة بصعود وكسر عمجرت
wardheer ayaa intii u horeysay dhowrkii ruux dhintay mooyee wax ka dambeeyo dhacay ma jiro birqod meeshii miyiga ahayd iyadna sidoo kale saacadihii wixii ugu horeeyay dhacay dambiilayaashu ay geysteen mooyee wax ka dambeeyay oo sii socdo oo sii hulaaqay oo colaado sii socotay iyadna ma ay jirto sidee dambiilayaasha loo qabtaa oo sharciga loo horgeeyaa ka hay'ada amni ahaan qaabka hadda aan wax u xakamayno waxa weeye marka koowaad in amniga la sugo marka labaadna gacan ku dhigla la raadiyo goobaha hadda aan soo sheegay gacan ku dhiglayaashoodii intoodii badneed waa la hayaa waxaa kale oo iyadna markay meel wax ka dhacaan dhacda oo yacni aan sax ahayn laakiin timaada had iyo goor inta gacan ku dhiglayaasha la raadinayo waxaa jira dad badan oo dhacdada iyada lagu qabqabtaa jira ama hadal ha kaga qayb qaataan ama kuwa iyagoo soo gurmaday oo qoryo wata ha la qabto yacni dad badan baa la xidhaa dadka badan la xidho unbaa kadib marka la kala soocaa processka marka xasiloonida timaado kadibna wixii aan gacan ku dhigla ahayna la sii daayaa wixii kalena maad aragtay sharciga la mariyaa marka gacan ku dhiglayaasha iyadna dhacdooyinkan dambe baryahan dhacahaya waxay hay'aduhu amnigu ku guuleystaan inay soo qabtaan maxaa aasaas u ah oo hadda dhacdooyinkan dhacahaya keenahaya haddii la yidhaahdo waxyaabaha aasaasku ah waa waxyaaba la xidhiidha waxyaaba deegaameyn ah weeye cusub deegaankeena sidaad ogtihiin golaha baarlamaanka sharafta lagu ogyahay golaha kaabineegu wuxuu isla qaatay oo ansixiyey in deegaameyn cusub oo qabalaya aan la samayn karin maadaama waxyaabihii hore ee faraha badnaa ee la sameeyey horumarkoodu iska liidan yahay dadkuna hadda magaalooyinku u soo ururahayo in tuulooyin urursan oo horumar laga samayn karoon ay jiraan laakiin inaan wax la sii samaynin waxaa jira marka dadyow ka qayb qaadanaya in deegaameyn cusub oo tuulooyin ay sameeyaan taas bay marka dadku isugu dhacaan inta badan yacni si yar abaabulan baa meelaha qaarkood deegaameyn cusub in loo sameeyo la isugu dayaa marka isku dhacyadu taasay ka yimaadaan waxaa kale iyadna oo isku dhacyada hadda u dambeeyay haddaan tii wardheer oo kale soo qaadanno tuuladu ka dhacay tuulo hadda cusub oo deegaameyn cusub hadda la sameeyay maalmahan ma ahayn laakiin deegaameyntii jiray baa la fidinayay oo ma aragtay in la ballaariyo la isku dayay oo la durkiyo oo qofku isagoo hal goobtan degan meel 3 kiiloomitir jirto kale uu barkada ka qodo taas oo isku dhac reeraha dhaxdooda ku keentay tuuladaasu tuulo maamulka degmada iyo dawladduba ay aqoonsanayd oo horumar laga sameeyay hadda ka hor ma ahayn hal iskuul oo ABA lagama dhisin xarun caafimaadna weligeed lagama dhisin waxa looga dhisi waayana waxay ahayd ma aqoonsanayn dawladdu waxay ahayd tuulo sharci darro lagu degan yahay bay ahayd hal lagu deganaada sharciyo ha soo jirto haday doonayso haddana dadka degan yacni ma aragtay dilal fara badan oo ka soo dhacay waayadii hore baa jiray oo meel yacni dhibkeedu hadda iska taagan yahay bay ahayd xukuumaddu marka xal waxay u garatay maadaama tuulooyin kale ba iska yaryihiin oo tuulooyinka sharciga ahaa ee iskuulada iyo xarumaha caafimaadka ka jiray in dadkaas iyada ay kooban ee meeshan degan ay ku kala biiraan oo degaan goobtana ay noqoto goob dhul daaqsimeed oo dadku ma aragtay si wadar ay uga faa'iideystaan marka si guud waxyaabaha yimaada inta badan waxay ku dhacaa waxyaaba deegaameyn cusub dad samaynaya la xiriira way kuwa dadka aan soo sheegay baa qayb ka ah asbaabaha ay markaas raacahayaan degmooyinkeena gaar ahaan kuwii dambe ee la sameeyey oo iyaguna xuduudo administration aan lahayn oo degmo X aysan garanaynin meel ay ku egtahay marka sidaas darteed in dhul ballaarsi riixitaan la iska sameeyo qabal tuulooyin la iskaga daro meel la sameeyo waxyaabo la xiriira way marka xalkoodu wuxuu noqon karaa in golihii kaabinee go'aan ku qaatay hay'adaha amniga iyo dhammaan bulshadu ay hirgeliso oo dadku hadda miyiga uu ka soo ururiyo magaalooyinka ku soo ururiyo tuulooyinka in la magaaleeyo in ma aragtay hirgelinteeda la sameeyo meelaha cusub ee la soo beerinayana la dumiyo laga hortago marka si guud dhacdooyinka khilaafyada jira kuwa yaabahaas ugu muhiimsan sidaas baana loo maareeyaa oo si guud ka hortagna waa jira waxyaabaha dhacana qaabkaas ayadna loo maareeyaa marka sidaas darteed si guud waxaan leeyahay anigu dhacdooyinka kulli way dhacayaan oo asbaabaha aan ciidamo u leenahay iyo shuruuc u leenahay weeye golaha baarlamaanka sharafta lana inuu sidiisa uu hay'adaha amniga ku kaalmeeyo dadyo badan oo ka qayb qaadanaya waxyaabaha deegaameynta cusub oo iyaguna jira inaysan wax faa'iido ah hadda inagu deegaameyn ballaaran la sameeyo sinoo lahayn baan rabaa inaan ku soo koobo dadka xidhan waa run dhacdooyinka dhacay dad badan baa loo xidhay waana la kala saari hay'adaha amniga cadaaladda gacantooda bay ku jiraan
marka mid walba kayskiisa in la diyaariyo oo cadaaladu wixii sharciga horgeyntiisa loo sameeyo wixii kale ee maaragtay la maareyn karaan la maariyo ba la sameyn laakiin asbaabta qabashada keenaysa marka hore in dad badan la qabto waxa weeye goobu dad ku dhintay dadku ay hubeysan yihiin isku soo birmadeen dadkii soo birmaday waa la qaban waa la xareyn marka inahaas baan ku soo koobi lahaa xabiista si guud waxa loo kala qaadaa 3 category marka sharciyan looga hadlayo maxaabiista xukuman oo inta la xukumay jeelasha asluubta ku jira waad ogtihiin waxaa ka jira horumar weyn baa ka jira kuwaas iyo isbedel fiican baa ka jira sharci si fiican uu keer gareynayana baarlamaankana baasgareeyay waana lagu dhaqaa caafimaadkooda jiifkooda noloshooda waxbarashadooda isbedel fiican baa ka jira waxaa markhaati ka ah hay'adaha xuquuqul insaanka oo dabagala ayaa taa markhaati ka ah human right promotion index fiican baa ka jira intii isbedel ku dhacay kaliya waxaa jira xagga dhinaca space-ka oo ciriiri yar uu ka jiro taana xukuumadda ayaa loo gudbiyay oo gacanta ku haysa sidii jeelasha loo ballaarin lahaa laakiin waxaan oran karaa progress fiican baa xagga ka jira roolka doorka kale groupka kale maxaabiistu waa maxaabiista dacwadaha loo haysto oo inta xeeraarinta booliska ka soo gudbay xeeraarinta soo galay dacwad lagu oogay dacwadooduna ay ku jirto geedi socod maxkamadeed progress fiican baa ka jira inuu ka jiro waxa markhaati u ah inta qof oo damaanad heshay inta qof oo waas lagu sii daayay ama waas ama nidaam kale lagu sii daayay conditioner inta qof oo qareen u dooday iyo inta qof oo fair trial heshay ama ambiil ka qaatay dacwadii lagu xukumay iyaduna waa nidaam kale oo process ah oo maxaabiista hal group weeyaan progress fiican baana ka jira iyadaas groupka saddexaad oo maxaabiista ah waa maxaabiista baarista ku jirta booliska maxaabiista baarista booliska ku jirta mas'uuliyadda waxaa sheergareeya xafiiska cadaaladda iyo xafiiska nabadgelyada waayo boolisku waxay accountable u yihiin directory xafiiska nabadgelyada xafiiska cadaaladuna wuxuu leeyahay supervision role buu leeyahay ay ka wada shaqeeyaan kiisaska oo investigation departmentiga ay ka wada shaqeeyaan hawshaas waxaad ogtihiin kiisaska deegaankeena ka jira siday ahaayeen markii hore iyo sida hadda ay yihiin faraq baa u dhaxeeya daraasad baa xafiiska cadaaladdu sameeyay wuxuu isbarbar dhigay isbedelka ka hor iyo isbedelka ka bacdi dhawaan baa la soo bandhigi doonaa haddii ilaahay idmo daraasadda waxay muujisay garaafka ugu dheer oo jiri jiray isbedelka ka hor kiisaska wuxuu ahaa the crimes against the state kiisaska la yidhaahdo oo ah kiisaskii ururadii dagaalamayay loo haysan jiray bay ahaayeen intii isbedelku dhacay kiisaska ugu badan garaafkoodu wuxuu noqday property crime buu noqday sida tuugada iyo burcadka iyo waxyaabaha la xiriira iyo urban crimeska oo kufsigii iyo xashishadii waxyaabaha noocaas xildhibaanada sharafta leh waxaan u sheegayaa hadda waxaa soo kordhay dambiga la yidhaahdo al-shabaabka ayaa soo kordhay oo 2015 u badan kiisaskeeda waxay ka dhex muuqdaan kiisaska boolisku ay gacanta hadda ay ku hayaan oo baarista ku jira kiisaska al-shabaabku waxay leeyihiin teeshin gaara taxadar gaara iyo inaad si waaqici aad u fakartid su'aalihii la xidhiidhay xafiiska horumarinta inta badan waxay ahaayeen kaabayaasha horumarinta dhanka leydhka iyo telefoonka saddex qaybood bayna dhanka leydhka u qaybsanaayeen qayb waa leydhgelinta cusub 24 magaalo la magacaabay xagay ku dambeeyeen bay ahayd qaybna waa ballaarinta oo magaalooyinka laga hadlayay dhagax buur iyo jijiga qaybta kalena waxay la xidhiidhay solarkii waxaan filayaa dariiq marsin bay ahayd haddii aan ku horeeyo horta federaalka ayaa shaqooyinkan oo xil saaran dabagal iyo qaristaag iyo iskaashi inaan la samaynin wax noo hirgalaan ayay ahayd shaqadayada waxaa jirtay in aan qiimeynay si aan u aragno baahida jirto iyo caqabadaha hortaagan dhanka leydh gelinta goobaha cusub waxaa noo soo baxday deegaanku wuxuu leeyahay 5 substation iyo 2 jaarka uu kala wadaagi karayo gobolka city iyo
gobolka Afdheer magaalada Raasa oo Raytu ku yaala inta kalena shanta ku leeyahay kulay wad garanaysaan shantaasi substation 24 magaalo ayuu gridka gaari karaya marka laga taga tuulooyinka kuma aanan darin inta laba jibaarkeed saddex jibaarkeed buu noqon karayaa haddii laymanka magaalooyinka la geeyo tuulooyinku sii marayo caqabada ugu weyn ee jirtay waxay ahayd boolasha tirarkan shubka inta meel laga qaado lightka station substation la geynayo magaalada kale caqabad ka jirtay caqabadii u horeysay waxay ahayd qiimaha hay'adani lightka gelinta ay u goysay tiirkii iyo suuqa waxa uu ka joogo productionkiisa ayaa farqi waxa u dhaxeeyay lacag 5,000 xukuumad ahaan waxa xafiiskan hogaaminayno iyo xukuumad madaxtooyada ba iskaashanayno waxaan isku daynay dacwana waan ka galay in qiimaha wax laga bedelo isla markaana inaan ayaga sugin aan kabno miisaanadeena maadaama muhiim bulshada u yahay baan go'aansanay farqi waan kabnay waxa dhacday in aan la gala marka heshiis saddex geesood warshada Tuure oo meesha noogu dhow ahayd Dirdaba 2,000 oo tiir waxaan halkaa ka boodon idin ifinayaa 14,521 tiir bay u baahan tahay in 24ka magaalo la geliyo leydhka calaa tiirna waxa u dhaxeeyay 5,000 lacag marka ayada ahayd waan qaadanay commitmentiga 2,000 baan heshiis la galay Tuure saddex geesoode mabrahaylkii anaga iyo warshadii 8 bilood baa laga soo wareegay productionkii nooma hirgelin caqabada labaad ee marka timid waa productionkii isku day maadaama ka wajitamayo waxaan isku dayna hadana goob kale oo lagu sameeyo asala inaan heshiis la gala 2,000 oo kale tii asala ayaa noo hirgashay 1,300 baa dhamaatay rarkii bay hadda sugayaan marka wax ku dhamaan hayo sanad iyo 2 iyo 3 hadee dadaalno inagu waxaan dhaqaalahayna gelino leydhkana aan ay nala hawlgalaan si hagar la'aan u dhamaan karaa ilaa 3 sano marka xildhibaanada sharafta leh inay saa u fahmaan baan doonayaa hadda caqabada taagan maxay tahay wixii hore waan xalinay qiimihii waxba laga bedelay go'aankii aan daba maraynay oo 2,500 buu noqday farqi ku dhaxeeyo waxbay ku dareen oo ka way dhow wanaagsanayd halkan 5,000 anaga kaga dari lahayn calaa tiir hadda 2,500 baan ku dareynaa laakiin caqabada hadda timid ee golaha aan rabay inay fahmaan xukuumadana aan doonayna madaxweynaha iyo madaxweynaha inaan la kaashano waxa weeyaan waxa la istaajiyay hadda in mashaariic cusub goobo cusub aan fidin lagu samaynin anagoo kabkii diyaar u waa la joojiyay waa hadda kulankan sanadkan dhamaadkiisa awaamirtii qiimeyntii ayaga sameeyeen ba amarka la bixiyay taa waxay ka dhigan tahay intii heshiiska ku jirtay 24kani waan sii wadi kareynaa caqabad kama taagno waxay dhan yihiin ilaa dhowr iyo 10 oo degmooyin iyo tuulooyinkii wadada u marahayay isku waxaysan tahay marka ka halka waa caqabad kulli waa iska kaashan doonaa inaan xoog saarno qaybta labaad oo ayadana la joojiyay waxa weeyaan tirashu MV waxa la dhahaa goob ilaa goob degmo ka degmo leydhka la jiidayo magaalada dhexdeeda leydhka la gelinayo shubka LV baa la dhahaa kii LV ga marka hore caqabad kama jirin qiimahana okay buu ahaa qorshahana ugu jiray mana xadidnayn hadda asagii laftiisana warqad baa laga qoro waa la joojiyay productionkiisii wuu istaagay marka kulli waxaad moodaa markaan albaab furno albaab kale ayaa xidhmayo runtii qayb kamidna way nala shaqeynaysaa xukuumadana dadaal bay wadaa ilaa xildhibaanada heer federaal iyo mas'uuliyiinta ugu jira arrintan waan iska kaashanay laakiin caqabaduhu waxay ka imaanayaan dhowr qaybood marka koobaad wadanku dagaal baa ka dhacay burbur baa ka dhacay waxa culays la saaray dhaqaale yaraana way jirtay miisaanad yari ayaa soo food saartay midda labaad goobihii dib u burburay in dib loo hagaajiyana culays baa la saaray hase ahaatee inagu ka deegaan ahaan xagga coverage-ka population-ka marka la eego ama household level-ka dadka aan kaga faa'iideysanayna 4% baan maraynaa xagga magaalo haddii la dhahana walow aan dood ka qabno oonaan magaalooyinka iyo weli tirkoob ku samaynin 18% marka waan ugu hooseynaa wadanku marka in special consideration loo sameeyo aragtay baan qabnaa insha Allah xukuumadana iska kaashan doontaa ilaa madaxweyne iyo inta inagoo dhanbo
dhanka xaaladda marka waa sida in sida loo fahmaan jeclahay xagga ballaarinta magaalooyinka diyaar bay yihiin ayaga iskale miisaaniyadaasi inay ballaariyaan annagu dawladaha hoose kuwa maamul magaalooyinka ahiin baa yar kabnaa meelaha qaarkood oo wax yar ku taxliilinaa dhagax buur way isku dayday inay samayso ilaa 2 transformer oo ballaarin way samaysay hase ahaatee waxa caqabad ka jirta xagga supply-ga transformerka kuwa halaabo in la bedelo way adag tahay kulligii waad ogtihiin waxaana waa maadaama supply-gu centralized yahay caqabada baa jirto magaalooyinka ma ahan inay fahmi waayeen ama ay ka gaabin hayaan transformerada baa caqabad ka jirta xagga shirkadda dhanka solarka waxaad ogtihiin in dhowr waji maadaama deegaankeena aad fog iyo cadad badan aan leenahay in looga faa'iideeyay in la gartay oo runtii priority aan ka nahay tijaabadii qorile ka sokow 3 phase baa la maray phase-ka koobaad waa 3 magaalo waa boqol maayo higlooley daraatoole oo construction phase bay marayaan almost qaar way gabagaboobeen qaarna way socdaan percentage-ka kala duwan phase-ka labaad 4 magaalo weeyaan ayagana contract phase bay marayaan waa dig gaashaamo marsin oo nus dariiq iyo booq oo mirqaan afartaas contract phase bay marayaan wareega saddexaad 4 kale ayaa iyadana jirto study phase buu marayaa waxa weeyaan galxamur booq galaadi daroor wareeg afraad baan hadda sugaynaa insha Allah oo wali aan codsanay in tirada naloo kordhiyo ka marka daraasaad buu aadi doonaa kulli priority listigana waan isla eegaynaa oo illa sax waan yar insha Allah waan rajaynaynaa waxa soo haray xagga Ethio Telecomka waxa la identify gareeyay 40 wax ka badan goobood inay caqabad qabaan oo iskugu jira degmooyin iyo qabalayaal inta badan u badan dhanka xuduudda nabadgelyada saameyn ku leh marka sidaad ogsoon tihiin shirkadda Ethio Telecom shirkad kale oo awal hore monopoly bay ahayd shirkad la tartanta ayaa wadanka soo gashay structure-keedii waxba iska bedelay business focus dhibay noqdeen oo big business ka oo regulatory-giina hayd kala laga dhigay marka waxay yar hakiyeen ama ay joojiyeen boon ayaga hadda shaqadoodii inay ahayn u yar arkayaan in infrastructure hor la ay ballaariyaan xagga service-ki iyo sales-ki ay hadda culeys ka saarayaan laakiin isku day fara badan oo xukuumadda madaxweyne ku-xigeenka iyo teamka kale isla kaashanayo waxaan isku daynay inaan ka dhaadhicino ugu yaraan bal 10 goobood inay xal u helaan 40 weeyaan baahida taalo marka waxaan isleenahay priority-ga degmooyinka in la saaro kuwa degmooyinka ay jirto marka kuwaana halkaas ay taagan yihiin waxaan isleeyahay si kooban waad u ifisay golaha aad baad u mahadsantihiin waxaan ku bilaabayaa dhanka tayada waxbarashada gaar ahaan macallimiinta oo run macallimiinteena oo ilaa 3,000 ah marka heerka aqoontooda eegtid 85% waa wax diploma iyo wixii ka hooseeya oo ah diploma ama TTI certificate ama macallimiinta loo yaqaan biyada 15% waa waxay haystaan jaamacadda heerka koowaad ama degree 3% oo ka yar 1% waxay haystaan waa ka yar 10% waxay haystaan waa master marka taas runtii waa arrin la xiriidha geed socodka hore waxbarashadii qaabkii macallimiinta loo tayeynayay waana dhibaato hadda aan dareennay markii ay noqotay in la tayeeyo waxbarashada marka waa arrin jirta laakiin talagal ahaan waxaan sameynay kulliyadaheena 3 kulliyadood baynu leenahay oo macallimiinta lagu tababaro 3 kulliyadood baa waxaan kor u qaadnay awoodooda waxbarasho oo ah inay degree bixin karaan oraan diploma bay ku ekaayeen degree baan gaarsiinay shuruucdii golahana ansixiyay bayaanadii lagu taabagelinayna hadda cabinetka waxaan u jeedaa xir nidaamyadii lagu taabagelinayna cabinetka ayaa hor yaalaan marka waxaan rajaynaynaa markaan taa kor u qaadno oo isna awoodooda macallimiinteena diplomkii waxay ka hooseeyeen inaan kor u qaadno marka taa fursad bayna siin doontaa ta kale jaamacadda Jigjiga heshiis baan la galnay ay tababaro dheeraad inoo siinayaan macallimiinteena hadda shaqeynaya hadda ilaa 122 macallin oo iskugu jira degree iyo master baan ku xarinay sanadkii 2014 2015 marka heshiiskan wuxuu gacan naga siin doonaa inaan kobcino awoodda iyo tayada barayaasha waxaad moodaa wacyiga bulshada iyo aragtida laga qabo macallinnimadu aad buu hooseeyaa marka golaha xildhibaanada maadaama markii aynu dadka wacyi gelinayno ama aynu la hadlayno arrintaa lagala hadlo haddeenaan macallin yeelanin waxbarasho tayala ma yeelanayno waxaan uga jeedaa macallin deegaankan u dhashay dhaqankiisa garanaya luqadii ku hadlaya
kasoo jeeda deegaankan haddaynaan yeelanin oo dugsiyada nasri iyo jaamacadeena wax ka dhigaya runtii waa adkaanaysa inaan waxbarashada tayeeno marka taana waa hawl u baahan kula annagu qorshe ahaan waan diyaarinay laakiin wacyigelin badan bay u baahan tahay hadda macallin markay ardada aad u tagtid weydiisid ay kuu sheegtaan baahi macallin ee dahdadu waa sax oo dhahaan macallinka noo dhigaya isma fahmayno maxaa yeelay manhajka xaggiisana way kasoo gelaysaa luqadda barashada ilaa sideedka waa Soomaali dugsiga waxay ugu tagayaan luqadda Ingiriiska jaamacadda Ingiriiska ku dhiganayaan marka iyaga ardada oo Ingiriis wax soo baranin baa dugsiga sare Ingiriis ugu tagaya marka waxay rabeen macallin ujsi jilciyo afkooda wax ugu sheega tiimaysan helin markaan ku dhahno idinku diyaar ma u tihiin macallin aad noqotaan ma ogola markaan ku dhahno maxaad u diidantihiin yani liiditaan baa jira xagga macallimiinta ah marka waxaan isleeyahay innaga xukuumad ahaan macallimiinta inaan tayeeno inaan dhiiri gelino inaan bulshadii ku baraarujino inay macallimiin noqdaan oo iyagu baahidaas aynu daboolo waa mid u baahan in qorshe fog aan u qaadano dadaalkeedana waa wadnaa insha Allah taala su'aasha kale waxay ahayd xagga dayactirka dugsiga sare degmada Erar waa run dugsiga waa dugsi gaboobay xilli hore la dhisay xilligii xilli salaasi runtii aad u dayacan laakiin sanadkan 2015 dhamaadkiisii qorshaha waan ku daray kabineedkan ka ansixinay lacag yar markaan haynay baan u wareejinay marka 2016 kana waan ku daray dugsiga waa la dayactiri doonaa runtii baahi badan way ka muuqataa waan ognahay dugsiyadana inta badan macalku xilliga hore la dhisay baahida way ka jirtaa oo inta badan culayska waxa la saaray dhismayaal baahayd ma ahayn kuwan hadda shaqeynay in la dayactiro sanadkan laakiin meelihii u dardaraa waan ku daray waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dugsiga iyo dugsiyo kale la midab inaan dayactirkiisa sameeyno dhanka degmada Guradhamoole waa run waxaa jira dugsiyo ay saameeyeen isku dhacyadii ka dhacay halkaas ee u dhaxeeyay labada qowmiyadood oo runtii saameeyay dugsiyadaas Guradhamoole kaliya maaha dhankan galbeedka gobolka City naftigeeda markaad eegtid degmooyinka Donyar iyo Daymad baahi ka jirta xagga waxbarashada sidoo kale Tulu Guuleed meelihii isku dhacyadu ka jireen oo dhan hadduu adeegi jireen wuu burburay meelaha qaarkoodna adeeg ba kama jiro marka xukuumad ahaan waan isla soo qaadnay in arrinta loo baahan yahay si goona in loo eego walo hadda miisaaniyada aysan noo saamixin inaan ku daro laakiin xukuumad ahaan arrintaas waa la garowsan yahay waana laga wada hadlay qaabkii loo xallin karo inagoo xitaa la kaashanayna hay'adaha markaa wixii awoodeena ka baxsan baahida way jirtaa qorshaheeda iyo talagalkeeda insha Allah taala waan sameynaynaa xukuumad ahaan iyo xafiis ahaanba iyo hay'adaha khusaysan oo la kaashanayna marka intaas baan ku soo koobay waxbarashada su'aalaha laga weydiiyay aad baad mahadsantiin marka su'aalaha u badan waa su'aalaha hadda mudnaanta aanu siinay 2016 waxa kamida meelaha isu socodka deegaan ahaan goboladu ay kala jiran yihiin Qubbi Bridge su'aashii ahayd wadada maxaa 50 milyan loogu qabtay bridge-kana 10 milyan wadadu wada socotay ahayd wadaduna waa wada muhiim bridge-kuna waa muhiim bridge-ka waxa jirta wakaaladda jidadka ee heer federaal baa wada shaqadana shirkadda jidadka wada marka si maadaama muddo waxa jirtay laba bari ka hor shirkadda jidadka waxaanu la kulannay heer federaal mashaariicda heer federaal warbixinteeda markay na siinayeen waxa kamid ahaa dhibaatooyinka haysta xagga dhaqaalaha wad ogtiin duruufii jiray dalka marka in kabis aanu sameeyno buundadaas ayaan 10 milyan si lacag dheeri ah dhow loogu daro koodkii loo sameeyay sababtaas keentay in 10kan u qabano arinta kale su'aasha ahayd waa dhinaca mashaariicda federaalka saan sheegay hadda mashaariicda federaalka waxyaabaha hadda u jiitamay waxa kamid ah dhinaca dhaqaalaha laakiin waxaan isla qaadanay meelaha muhiimka ee xooga ay saarayaan ay kamid tahay su'aalihi xildhibaanadu ay soo dhigeen wadada laamiga Darabe Shinile iyo jidka Sodonka ee Jijiga marka ahmiyadda inay siiyaan waxyaabaha dhaqaalaha la helo in kuwa la geliyo sidii mudnaanta loo siin lahaa arinta kale su'aasha waxa kamid ahayd Gaalon Bridge iyadna saan sheegay waa meelaha mudnaanta sanadkan aan siin doono waxna laga qaban doono su'aal kale waxa jirtay wadada laamiga ee Qabri Dahar iyo Wardheer wadada aad bay u dheer tahay ahayd arinta waa arin technical la xiriir deegaankeena marka adeegti qaabku dhulku u yaalo waa flat way marka si markuu xilli roobaadku uu da'o biyaha meelaha fadhiisanaya wadada sayna wadada wax u yeelin meelihii ay biyo ka bixi lahaayeen in la sameeyo marka tuumbada u yar ay biyo ka baxaan waa 1 mitir way standardiga marka 1 mitir iyo caradii wadada marka la is saaro wadada sababta u dheeraanayso waa sababtaas
laakiin waan ka dadaalnay meelo qaarkood meelaha degmooyinka oo kale inay hoos u dhigaan oo ay deegaanka wax ka bedelaan arrinta kale ah meelo waxa jira shilal ay ka dhacaan oo shilal keeni kara oo xagga wadada ah marka la dhisayo taa waanu wargelinaynaa in calaamadihii loo baahnaa ay dhigaan waana qasab weeyi waddo kale waxa jirtay la soo qaaday oo email Shabeelle oo heer federaal lagu fulinayay waddadaas waxyaabaha daahiye waxa kamid ah nashqada iyo miisaaniyadii oo la heli waayay hadda laakiin shirkadda jeedka way bilaabeen si fiican way wadi doonaan lacagtiiduna waa la siiyay wax soo saar badan baa la soo saaray laakiin sicir bararkii waxa kama qaban su'aasha odhanaysa baa ahayd kolley wax soo saarkan soo saaray sanadkan 23 milyan buu kala bar khudrad bay ahayd oo basal u badan sicir bararka waxyaalaha hoos u dhigi kara waxa kamid ah cuntada daruuriga waa kala bar un bay ahayd taasina waxay dabooleysay markaan qiyaasnay 50% wax ka yar laakiin inta kale khudrad bay u badnayd marka su'aasha ayna nuga jawaaban jeclaa midda kale aan ku leeyahay waxay tahay beerleydu kharashka wax ku soo saarayaan wuu kordhay ee hoos ma dhicin shidaalku wuu kordhay cagafta oo ku qodaysay sanadka bilowgiisii 200 riyaal markii beera la qoday ilaa 400 500 bay gaadhay saacadii markii la jarayna qamadi oo kale aad buu kordhay marka kharashkii beeraha galayay xagga shidaalka iyo xagga cagafyada aad buu kordhay beerleydu ku kordhay inagu inuu kuna wadanka oo dhan uu ku kordhay tusaale waxaan soo qaadan karaa markii qamadiga deen ka soo go'day beerleydan ka iibsan inagu 4500 baan ka iibsanayni laakiin awaasa markaan 500 ka iibsan 4500 ku iibsanayni 6700 ku American talku marka waxaad garan karaysaa sicir bararku inay kale inama saameeyay inaga laftigeena waxaad moodaysaa waxyaalaha qaarkood inaan ka fiicnayn deegaanada kale taa intaasaan ku odhan lahaa waxyaalaha keenay waxay ilaa xildhibaanada qaarkood soo dhigeen gashiga la geliyay baa yaraa horta gashiga la geliyay wuu yaraa waa run laakiin hayntay ku xidhan tahay deegaankeenu baahiyo badan baa sanadkii dhawaa jiray oo dhinacyo badan leh xagga nabadgelyada xagga maaragtay abaaraha wax badan baa jiray marka gashigii la geliyay wuxuu qaban karayay kolley dee waxba lama hagran waxyaalo badan oo qabtaa jira xagga gashiga beer in seedka cagafyada kanala badan oo dhisay baa jiray xafiiska xataa waraabka lafti waxyaalo badan oo qabtaa jira marka haynteenu wixii ay ahayd un baa horta la geliyay laakiin baahida iyo hayntuna way kala duwaneed marka baahida loo qabay tusaale abuurka xulka oo kale beeraleyda waxaan odhan karaa 4% un baa la gaarsiiyey marka taana waxa keentay haynta oo yarayd marka saluuga aad dareemaysaa wax weyn hayntii la hayay ayaa yarayd weeyi arrinta kale ee la soo qaado waxay ahayd beeraleyda hurso dhulka hurso ayay ahayd arrintaas muddo badan baa ciidamada lala hadlay laakiin markii iyadoo meel fiican wax marayaan baa dagaalkii waqooyigu dhacay mas'uuliyiinta hawsha ogaa oo idil meelaha way ka kala tageen ilaa hawsha way taagan tahay marka waxayna ka go'daa ciidamada ay commandigooda ugu sareeyo arrintan ka go'a nimanka jooga hurso go'aan iyagu ma laha marka hawsha waxay noqonaysaa hawl maaragtay madaxweynuhu ay joogaan in lagala hadlo saraakiisha ugu sareysa ciidamada in lagala hadlay noqonaysaa waad mahadsantihiin caymiska caafimaadka iyo healthcare financinga deegaan ahaan iyo dalku halku taagan yahay waan ognahay in dalku sanadkan aan ku soo dhamaadeen hadda la qiimeynayo waxa la xusayay sanad guurii 10aad deegaan ahaanna in badan ayaan dib uga soo dhacnay oo muddooyinkii hore ee loo baahnaa in laga faa'iideysto caymiska meesha u baahnaa lama soo gaarsiinin laakiin hadda waxa la geliyay dardargelin xooggan caymiska dhanka caymiska caafimaadka ah healthcare financing hadda waxa laga hirgeliyay ilaa iyo 83 xarumo caafimaad sanadkii hore waxaan soo kordhinay 2014 waxa la soo kordhiyay 3 goobood oo laga bilaabay caymiska oo guud ahaan ka dhigay maaragtay 4 ay soo gaaraan laakiin sanadkan xoog weyn ayaa la geliyay dardargelin ballaaran 10 goobood ayaa laga bilaabay caymiska caafimaadka oo 7 ay degmooyin yihiin 3na ay magaalooyin yihiin hadda maadaama dadkii iyo degmooyinkii iyo goboladiina ay fahmeen muhiimadda uu leeyahay caymiska caafimaadka iyo waliba marka la eego dadka danta yar ah aanan awoodin inay jeebkooda maalin kasta iska dabari karaan markay xaalad caafimaad la soo daristo wacyigelintii ballaarneyd ee laga bixiyay ilaa iyo degmooyinka hoos loogu dhaadhiciyay muddooyinkan dambe degmooyinka badanku waxay codsanayaan 2016 qorshaha maaragtay in iyagana lagu daro
waxaan qorshahaan u qaadanay sanadkan inaan ilaa 22 degmo kale cusub aan soo kordhino si ugu yaraan aan marka la eego deegaanka oo dhan 30% caymiska caafimaad dadka inaan soo gaarsiino muhiimaduna ay tahay in dadkan danyarta ah ee aanan awoodin markay xaalad caafimaad la soo diristo inay isdaweyn karaan oo wixii kharash ku baxaya ay dabooli karaan aan madartay ay kaga gaashaamadaan marka dardargelin xoogan ayaa ku jirta waxaan golaha sharafta leh xildhibaanada aan ka wargelinaynaa iyaguna taageerada dhankooda ay ka soo baxaan oo markii ay degmooyinka u dhaadhacaan iyo goob doorashooyinkooda ay ku wacyigeliyaan bulshaduna adeeg bixintan ballaaran ee hadda hoos loo dhaadhicin ay ka faa'iideystaan inta marka laga tago degmada Araarso waxaa jirta dhisme ballaarin ah oo bilaabay xafiiska horumarinta Soomaalida oo hadda la isla qaatay inay noqoto maternity ward dhameystiran oo hooyooyinka iyo dhallaanka lagu daweyn karo waana ka wada fadhiisanay waana madartay sanadkan inay dhameystiran haddii la yiraahdo oo qalinkeygii wadata annaguna wixii madartay taageero dhanka xafiiskaaga ama qalabinta noqoto ama shaqaalaha noqoto aan ka taageerno sidaas ayaan isla qaadan haddii la yiraahdo inta mashaariicaha isla xisaabtan adag iyo dardargelin iyo dabagal joogto ah maadaama la sameynayo meelihii inta badan dhibaatooyinka ay ka jireen ama jiitanku ka jiray hadda isbedel ballaaran oo maartay waafi ah ayaa ka jira meelihii ugu dardarnaa ee sida degmada Mayo Muluqo Harabura iyo magaalo cad hadda isbedel baa ka jira oo aan isleenahay anaku madartay 60 bilood u soo horeysa way dhamaanayna hadii la yiraahdo maadaama qandaraaslayaasha madartay aynan tayadoodu kala duwan tahay oo qaybna ay hore u dhameyn karaan mashaariicaha qaybna ay dib ugu dhici karto meelihii dib u dhacay ka mid ahaayeen isla xisaabtankii iyo dardargelintii xooganida ee la geliyay hadda isbedel baa ka jira Harabura si fiican ba hadda u socotaa iyo xob si fiican ba u socotaa waxaan rajaynaynaa muddo kooban inay ku dhamaadaan qalabeyntiina diyaar baa la leeyahay inay muddo kooban aan ku dhamayno bulshaduna ay ka faa'iideysato sida ay isla mashaariica kale ee la midka aaga ka jira isla degmadaasun cusbitaalka Dhagaxbuur design-ka ayuu dhib ka jirtay design-kii waa la saxay iyo nashqadiisa oo dhan tahayba hadda isbedel xoogan oo dardargelin adag ayaa socota dabaqii labaad ayaa kor loo bilaabay waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu hadduu u yaraado duunan dhammaanin laakiin finishing meel fiican intuu soo gaaro 17 inta ugu horeysaba waa adeeg bixinta bilaabo haddii la yiraahdo xarunta caafimaadka ee Madaweyne arrin dabiici ah dib u dhigay markii qandaraaslaka dib loo siiyay ilaa roobabkii aaga ka daay laakiin qandaraaslihii waan u yeernay waa la xisaabtamay muddana waa loo qabtay rescheduling baa la sameeyay marka waxaan rajaynaynaa muddo kooban inuu ku dhamaado annaguna madartay dabagal adag aan ku sameeyno haddii la yiraahdo si bulshada aaga degan ay uga faa'iideysato xarunta caafimaadka ee Sagag waan qaadanay assignment-gaas laakiin maadaama oo hadda miisaaniyad aanan u haynin waxaan ku jirnaa miisaaniyad raadinteedii in labada xarumood la isku dari karo oo dhankii adeeg bixintoodu ay isku raaci karto inay xarun la ballaarin karo oo noqon karto meel qalliinkii leh oo adeegi bixinaysa iyo inay noqon karto markay standardiga la eego primary hospital in la soo gaarsiin karo labadaas dhanka u dhacdo inaan waan qaadanay injineerada xafiiska madartay waxay ku jiraan inay eegaan bal dhanka u dhacayso laakiin miisaaniyada aan u raadinay noqoni maadaama hadda isla qaadan mashruuc cusub lama bilaabayo mashaariicihii si socdaan ha dhamaadaan si madartay adeeg bixin looga helo kulli miisaaniyad baa u baahan daraasaadku marka uu dhamaado meelihii kale aan la kaashan karno ama hay'adaha haato ama federaalka waa ahaadabe inaan madartay iyadana aan xal u raadinayaan yaan isku dayanaa haddii la yiraahdo xarunta caafimaadka ee Dudaadu waan ognahay masiiba ku dhacday xarun caafimaad oo dhamaatay oo aad qurux badan bay ahayd laakiin dagaalkii aaga ka jiray Guradhaamo walay wax yeelo ka soo gaadhay codsi ayaan diyaarinay hadda inuu injineerku soo qiimeeyo marka la qiimeeyay kadibna aan federaalka aan la kaashano maadaama ay ahaayeen xarumaha caafimaadka marka hore matching lagu dhisay in aan hor dhigno xafiiska caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee federaalka in laga taageero in xarunta caafimaad haddii la karayo markii madartay la soo estimatekiisa la soo sameeyay in dib loo bilaabo dhismihiisa dib loo dhameystiro haddii la yiraahdo su'aasha koowaad waxay ka timid Araarso biyagelinta Araarso oo ciladi ka jirto Araarso biyagelinteedu waxaa la biyageliyay sanad hore oo aad u fogeyd baa la biyageliyay 2014 waxaan tagnay iyadoo 6 sano ayna shaqaynaynin
mashruuca waan ka shaqaysiinay abaarihina waa lagaga soo baxay biyahana waxa laga dhaamin jiray magaalada looga dhaamin jiray miyiga bidaankii halkaas laga sameyn jiray mashruucna si fiican buu u shaqaynayay 2014 laakiin markii roobku daayay kadib maamulkii degmadu farahay ka qaadeen mashruuca mana shaqeeyo dhibaatada shaqayn la'aantuna xagga maamulka degmada ayay ka timid kama imanin cilad kale يعني مشروعي شقيني 2014 xilligii abaartu jirtay ee baadhanka faraha badan uu jiray shaqaynay inuu xilligii roobku da'ay uu shaqayn waayo oo la yiraahdo hadda ma shaqaynayo waa gaabis xagga maamulka ka jira degmada Buuha maxay la waxay haystaan welding machine kii bay haystaan oo meel kasta oo qaraxda ay ka hagaajin karaan oo say kulka hore u hagaajin karaan haday meel ciladii ay ka xoog badato iyagana inay nala soo kaashadaan oo hagaajinaan bay ahayd laakiin waxa jirta ceelka haljiid oo biyuhu ka yimaadaan oo magaalada ceelka waraabiya iyo inta magaalada u dhaxaysa ilaa 15 kilomitir dhexda waxa ku yaala kayd booster ah oo biyaha laga soo tuuro halka ayaa kala badha markaa distance-ga ama fogaanta u dhaxaysa ceelka iyo magaalada inta ceelka iyo u dhaxaysa iyo boosterka u dhaxaysa ay tuubadu dhuuban tahay in la bedelo ayaan go'aaminay miisaaniyad waxaan uga helay wasaaradda waraabka ee federaalka aan uga helay isaga mashruuca iyo mashruuc nagar daala ay ku qarsaadula kadibna waterworks enterprise ka la siiyay mashruuca iyaga gacanta ku haya waxay carqalad iyo dhibaato ka jirta mashruuca marka wakaalada iyo wasaaradda waraabka iyo xafiiska madaxtooyadii kulli waan isla sixi doonaa wixii suuragal ah isla sixi doona ka laakiin inay magaaladu cabto dhibka waxa weeyaan oo asal iyo asaas u ah maamulka degmada oo iska ilaalinaya shidaalka ay ku bixinayaan biyahana inay iibiyaan bay ahayd shidaal inay ku biiriyaan bay ahayd inay sidii uu 2014 u shaqeeyay marka halkaas oo biyaha magaalada Araarso laakiin ciladaasi waa cilad la sixi doono laakiin cilad xafiiska biyuhu gacanta ku haya ma su'aasha labaad waxa ahayd bilcilbuur dhaam baa la ballan qaaday ma ogin ballanqaadka dhaamka laakiin ceel baa loo qoday mashruuca LRB baan ceel ka qodnay ceelkiina biyo gelintiisii hadda la bixiyay qandaraaslu uu tagi doona waxaana gacanta ku haya LRB baa gacanta ku haysa waana la biyo gelin doona magaalada hadii la yiraahdo su'aasha saddexaad waxay ka timid xildhibaan isna ka waramay koruqaadka ama gaaritaanka heerka coverage-ka xafiiska biyuhu gaadhay 43 buu gaadhay 22 mashruucna way ka taagan yihiin hadday 22 mashruuc taagan yihiin sidee buu gaadhay coverage-kan waxaan mashaariicdan taagan ee la soo dhigay waxa weeyaan waa bahwadaagto dhan laakiin waa mashaariic yaryar oo on spot projects ah markii laga reebo mashruuca biyo gelinta degmada Qadaaduma marka laga reebo marka Qadaaduma oo kale iyo Lehel iyo maxaan ku raadin degmada Lehel iyo meesha la yiraahdo Gablel iyo wash program bay ahaayeen inta sourcigooda la diyaarinayay ceelka la qodayo ayuu mashruuca biyo gelintu dib dhacaya marka sadarteed iibkii uu dhamaaday processka agreement-kii hadda uu taagan yahay mashruuca Qadaaduma waa la galaya hadda uu bilaabmaya mashruuca Lehel iyo maxaan ku mashaariic kale oo dhowr ah sida maxaan ku raday qarsooni oo kale iyo qundi oo isbood yaryar ahaan dib ay nooga yar dhaceen sababta u dhaceena Lehel ceelkiiba lama qodin oo riiqoda ayaa wali la leeyahay haddaan waa hayn la galay heshiis waa hayn baa qodi doona hadii la yiraahdo Lehel iyo Ruuhareer labadaba qodi doona hadda heshiisaan la galay marka laga hadlo gablelo oo kalena hadda ceelkii aan dhameystirayba marka hadda biyo gelinta hadda bilaaban doonta marka mashaariic dhowr oo yaryar baa jirta oo harsan mashaariicda ceel ka taagan xafiiska biyo waxay u badan yihiin ceelal bay u badan yihiin riig loo leeyahay bay u badan yihiin oo riigga yar ee deegaanka inay gaadhaynin oo kolba qaybta dhameeyaan qaybta kale ay galayaan laakiin coverage-ka waxa gaarsiiyay 43 dhibic dheeraad gaarsiiyay biyo gelinta aan ka sameynay aan dhameynay Wardheer Gaashaamo Imay Bari Awaare maxaan ku raadayay Sardaale Gresley Harcaday toddobada biyo gelinood oo dhameystiran oo hadda laga faa'iideysanay ayaa jira 30 ceel oo ka shaqaysiinay baa jira oo si cusub aan ka afka uga furay oo dadku ay ka cabayaan baa jira marka kuwa noocaasi coverage korba u qaadayaan saadarta coverage inuu gaadhay waa sax weey halka uu gaadhay waxa kale oo iyadana la weydiiyay ceelka Baledig bamlaan buu fadhiyaa baa leeyahay marka waxaan u maleynayaa xog dhowr xogood oo siyar burinayaad moodaa in laga soo jeediyo halkan oo ah in uu bam la'aan u fadhiyo ceelkii oo ceel u shaqayn lahaa uu yahay dhinaca kalena waxa la sheegay in uu ceelkani ceel dumay yahay xafiisku uu u sheegay dadka faa'iidana una lahayn ceel kale in la qodo ay tahay oo loo ballan qaaday dadkii taana waa la sheegay marka waxaan leenahay labadaas isma gali karaan saadarteed waxa sax ah
xogtan dambe ee ah ceelku inuu shaqaynaynin oo ceel dumay yahay ama markii hore qodaalkiisii uu dhibaato ama farsamo xumo ka jirtay marka ceelka la qodayo ee la dhamaystiro ee biyaha laga gaadho casing baa lagu sameeyaa oo biraha casinga la geliya ama caagba ha ahaadee kadibna gravel ama dhagaxan jajabka lagu shubaa hareertiisa gravelkii laguma shubin ceelka waxa lagu shubaa aad buu yaryahay gravelku dul yaalla hadda dul yaallaba problemka ka yimid buu ceelku deedna u kulaabsi garoobay oo aan waxba looga cabin maalmaha laga cabay ceelka bigiisaba waxaana la qoday 2017 xilliga abaartii baa la qoday 390 mitir buuna qodan yahay ceelku marka ceelkaasi ceel faa'iido leh ma aha ballanqaadka waa la sheegayana ma annaan ballan qaadin laakiin waxaan nidhi waxa weeyaan xal kale ma leh in ceel kale la qodo mooyaane marka ereyga noocaasi kama dhigna in aanu ballan qaadno ceelka inaan hadda qodayno laakiin markii mustaqbalka aynu miisaaniyad helo waynu qodi doonaa haddii alla yidhaahdo ama fursad aynu helo laakiin qabalaygu wuxuu ka faa'iidaa dhinaca shishe ee xuduudda Somaliland ayaa waxaa laga qoday baldhiig ceelkan kale u jira 3 kilomitir 3 kilomitir u jira ayaa laga qoday oo biyo fiican leh qabalayga laftiisa la isku cabaa water point iyo gooniyana way leeyihiin halkaas marka si fiican uga faa'iideystaan oo kaas cabaan laakiin markaynu inagu aynu fursad u helo waa loo qodi doonaa haddii la yidhaahdo baldhiig su'aasha kale xildhibaanku soo jeediyay waa systemkii dheeraa ee birqood gunagado dig marsin weeyaan ma shaqeeyo hadda mashruucana qaamkiisu wuxuu ahaa isku turtur baa ka jiray xildhibaanadu yiraahdeen waa suuragal inuu marka aan xogtiisa si sax ah loo soo dhigin inuu isku turturkaasi muuqdo wayna ka muuqataa oo marka degmada la tagana waxbay sheegaan oo waxbaan sheegaynaa laakiin mashaariicdan multi-village projects ee tuulooyinka badan waraabiya iyo kuwa magaalooyinka sanadka 2015 waxaanu u qabanay miisaaniyad xafiis ahaan 6 bilood ayaanu u qabanay 6 bilood miisaaniyadoodii waanu siinay 6 biloodna way ku shaqeeyeen 6 bilood ee kalena inay degmooyinkii iyo magaalooyinkii cid ay u shaqeeyaan u qabato kabida ayaanu warqad official u qoray xafiiska madaxtooyada aanu qoray maaliyadda aanu qoray gobolada aanu qoray iyagana way gaadhay xilligii miisaaniyada la qabanayay mashruuca gaar ahaantiisa waxaan nidhi hal la qabto degmooyinka saddexdii ay isku qabtaan 11 milyan iyo 500 ha isku qabtaan يعني gunagado ugu badan 4 milyan iyo 500 ha qabato dig 3 milyan iyo 500 ha qabato marsina 3 milyan iyo 500 ha qaataan idhi inta marka waxay ka qabteen iyagoo magacyo kale u bixiyo qaarna yidhi leyd baanu ku yar gelin doonaa qaarna yidhi biyo waraabin weeyaan ayaa waxay u qabteen 9 milyan iyo 500 bay u qabteen laakiin ilaa hadda hal riyaal lagama hayo wakaaladii mayna siinin problem kale yimid wuxuu ahaa sanadka gudihiisa waxaa cagaf baa ka shaqeyso meeshii kolba xumaataba wakaaladu ay ku hagaajisaa cagaftii baa mar wakaalada qodaalka ceelasha ay qaadeen ay goday geeyeen si anagoon ka tashanin oon ka wada socon hawsha xafiiska madaxweynahan kaashanay iyaga ka dhis garaynay gadaal baa la soo celiyay waxay maqnayd cagaftu bil iyo 20 habeen bay maqnayd bil iyo 20 ka habeen ay maqnayd isla maalmii u horeysaba meel baa qaraxday way sameyn kari waayeen shacabkay markii dambe ku sameeyeen bil iyo 20 ka habeen ayuu mashruuc fadhiyay markaa oo uu fadhiyay hagaajinta baybka uu fadhiyay oo baybka in la hagaajiyo ahdo cagafta la soo celiyo marka taa halka problemka yid mooyaan 6 bilood hore uu shaqeynayay bam hal mar buu bamku gubtay bamkiina Dubai baan si degdeg ah ugu dalabnay waa bam aad u weyn oo biyo maxaan qora soo tuura 37 saadarteed mashruuca isaga wuxuu 6 bilood dambe u fadhiyaa waa degmooyinka weeyaan oo fadhiyay oo lacagihii aan siinin iyagana degmooyinku sameeysta waxa la wixii qaraxa iyo wax walba iyaga sameeyo oo waxay haystaan cagaftii welding machine-kii bay haystaan wax walba haystaan ajandaha labaad ee sanad miisaaniyadda 2015 ee warbixinta xukuumadda cod baan gelinaynaa xaqiina aan soo wareejin doonaa inta xildhibaan ee ogol gacan dajiya inta xildhibaan ee diidan hal xildhibaan haye inta ka aamustay haye 2 haye cod aqlabiyadu ku ansaxay